Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ku soo dhowaada muuqaal cusub iyo Bayaaniya Channel. Al-insaanu al-kaamil ama kaamil ahaanshaha bini'aadmiga. Taasi waxay ahayd halhays ama oraah ama aragti laga soo hogtay Alfarabi, sidoo kalena reer galbeedka ay u yaqaaneen Alfarabios. wuxuu ahaa qof ku xeel dheer cilmiga falsafadda, sidoo kale wuxuu ahaa saynisyahan bartay cilmiga metafisikiska, ethikiska iyo weliba logics. magaciisoo dhammaystiran waa Abu Naasir Maxamed Alfarabi. wuxuu ku dhashay Turkistaan taariikhda markay ahayd 872. Alfarabi wuxuu u guuray Baghdad, halkaas oo uu ku bartay naxwaha, falsafadda, xisaabta iyo sayniska. Alfarabi wuxuu lahaa rabitaan weyn si uu u fahmo caalamka iyo bini'aadmiga. aragtida uu Alfarabi ka haystay waxbarashada ayaa ahayd in qofka loo horseedo dhammaystir. aragtidiisa ayaa ahayd al-insaanu al-kaamil ama kaamil ahaanshaha qofka. kaamilnimadii uu ka filinayay waxbarashada ayaa isugu dartay Alfarabi aqoon iyo dhaqamo kala duwan. Alfarabi wuxuu xafiday ama ilaaliyey qoraalladii asalka ahaa ee Griiga intii lagu guda jiray da'dii dhexe, sababtoo ah faallooyin iyo tixraac awgeed, taasoo sababtay in Alfarabi uu noqdo qof si weyn looga yaqaano bari iyo galbeedba. dhaqanka iyo falsafadda Islaamka waxaa Alfarabi loogu yeeri jiray macallinkii labaad, isagoo raacay Aristotle oo loo yaqaanay macallinkii koowaad. Alfarabi wuxuu dhintay sannadkii 950 hijrida magaalada Damascus ee Syria. waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.